السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين سلامي ولا لاقي شرفت له ku xiran channelkayga. waxaan idin leeyahay asxaabta cusub ee igu soo biiraysa soo dhawaada. asxaabteeda hore waxaan idin leeyahay like-ta iyo subscribe-ka hilmaamina. insha allahu tacaala saa arkaysaan ama aad ciwaanka ka aragteen waxaan sameynayaa maanta martiqaad yar. waxyaabahan sameeyay aad ay u badan yihiin, marka waxaan isku dayayaa videoga part 1 iyo part 2 inaan ka dhigo hal video, yani inuu zaid u dheeraanaya u maleeyay, marka xogo waan kala jarayaa. okay, videogan hore maanta waxaan kasoo hormarinayaa, waxaan sameynaynaa bariiska iyo hilibka iyo digaaga malayga, intaasaan ku sameyn doonaa hadduu alla yiraahdo. marka waxyaabahaasaan usii sameeyey inaa ila daawataan rajeynayaa, maadaama bil barakeysan ay bilaabatay aad ka faa'iidaysataan cunto fudud oo lagu afuri karo ayaa idiin sameyn doonaa hadduu ilaa yiraahdo. martiqaadkaana saa u sameeyey ila fiirsada. halkaa waxaa ii yaala hilibka waxaa waaye sarar iyo lug. insha allah waan jarjarayaa. marka hore qiyaastii aa rabtida u jarjaranaysaa. haddaa rabtid inaa yareereysid waa yareereyn kartaa, ani laakiin ma rabo inaan yareereeyo, seeskaas ayaan u jarjaran doonaa hadduu alla yiraahdo. waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan. bil barakeysanaa bilaabatay. maanta ramadaan koo waaye, laakiin videoga ramadaanka wuu ka horeeyey. waxaana rajeynayaa insha allah in ramadaanka khayrkiisa aan ka faa'iidaysano. ramadaanka waxaa weeyaan shahrul qur'aan, shahru siyaam, shahru qiraa'ati alqur'aan. ramadaanka saa ogtihiin walaalyaalo ma ahan maxaa la dhahayeeto bil barakeysan weeyaan. bishaasna ma ahan bil ciyaar ah. ma naqaan in ramadaanka dambe aan soomi doono, ma naqaano tan inaan dhammaysan doono, allahu aclam. nin walba meesha loo soo jira ilaaha og. waxaa fiican marka maadaama ayaamul khayr badan ay ku jirto oo maalintii naarta la iska xoreynayo ay ku jirto bishaan, inaan aada uga faa'iidaysano, qur-aanka akhrisano. yaa insha allah kelimatu dayiba sadaqa waaye. wax yariiska oo baraarujinta ay idiin sameynayo. waxaan rajeynayaa in ilaahay dad badan yacni sababtaas uu ku bilaabi doonaan qur-aan akhriska. hilibka waan googooyay, qiyaastii raba u googooyay sa arkaysaan. waxaan soo qaadanayaa digsigan barashar cooker waaye. waxaan rabaa yani maadaama waqti badan aan haysan inaan 5 daqiiqo kala tuuro. cunto badanna waan sameynayaa. waxaana rabaa aday 2 hours meelahaas ugu badnaan inay iga qaadato diyaarinta markii laga reebo. digsigan marka aad kuu saacideynaya. ninkaa haysan wuu soo gadan karaa, kii haystana si loo isticmaalo insha allah ina arkaysaan rajeynayaa. aad iyo aad u fiican yahay, yani digiraha oo kale markaa karinaysid. digirtaan aan dhahno bebeesheeda, hilibka, wax walba maasha allah wuu kala tuurayaa. bariiska xataa waa lagu karin karaa, keegaa lagu sameeyaa. marka insha allah ani maanta hilib aan ku sameynayaa sa arkaysiin. hilibka meesha aan kusoo riday. haddana waxaan ku darayaa kabsar aan soo jarjaray. waxaan kaloo ku darayaa basal yaro waaweyn aan usoo jaray. waxaan ku darayaa halkaas caleen rosemary waaye. waxaan kaloo ku daray hal xabatoon oon kala gooyey. waxaana ku darayaa maraq digaag ama cusbo ka isticmaalaysid unbaa ku darsanaysaa. waxyaabaha kale oo carfiska oo spiceska ah gadaala uga dari doonaa markaan shiilaayo ama dubaayo. laakiin hadda intaana rabaa inuu marka hore uu ku karkaro, yani uu ku bislaado, ma fahamteen. digsigan markaa ku ridid hilibka yani 10 daqiiqo kaama qaadanayo. digsigan digsigii foorinayo waaye. 4 fooriyo markuu fooriyo okay, hilibka diyaar waaye, kala bood. haddii aad ku sugto oo isdhahdid digsigan digsi caadi waaye oo hilibka maanta o dhan dabka aad ku haysid, mushaaric camal uu kaaga kala dadaadanayaa. marka adiga waxaa ku qiyaasataa foorida. markuu foorida bilaabo 4 foori markuu maraayo kadami dabka digsiga kaa qaboobo, kadib aryada ka bixi, fur, hilibka diyaar waaye. ma fahanteen. dadka inta badan waxay dhahaan hilibka mushaaric uu ka dhigaa, idinkaa waqti badan gelinayo. haddana waxaa arkaysaan wax yar oo waxaan ku daray filfil ah. insha allah waxaan idinka rajeynayaa walaalaha sharafta leh qof walba videoga soo gaaro inuu subscribe-ka ii saari doono, videoga sii share garay asxaabtaada ka faa'iidaystaan insha allah. haddana waa arkaysaan biyihii kusoo daray. biyaha haddaa ku yaraysid xataa yani okay waaye. ani xoogaa biyaha waan ku yara badiyey. maraqaan ka rabaa bariiska aan ku sameysto. digsiga markii la xiraayo sidaas u xiraysaa. wax yara hoos u cadaadinaya kadib waa xiraysaa.
insha allahu tacaala hilibka dabkaan saaranay halkan digaagyaan ku sameysanaya. Digaagiyaa soo qaatay kiilo waaye. waxaan ku darayaa kabsar iyo toon, jeexlin dhanaan ah, basal, caleenta rosemeriga. intaa markaa ku karisid wallahi caadi ma aha suu kusoo bixi doono. halkaana malaaygaan ku diyaarsanaya sa arkaysiin walaalaha sharafta leh. video waxooga waan soo yara gagaabiyey, mar rabo waqti badan inuu naga qaato. waxyaaba aan sameeyo dhanna inaad ka faa'iidaysataan oo fahantaan aan rabaa hadduu alla yiraahdo. waxaan ku darayaa xawaashidii lagu sameynayo malaayga. babrikaa ku daray, xawaashi jaalaan ku daray oo waxaa la dhahaa spiceka oo fishka lagu sameeyo. cusbaan ku darayaa waxyaabaha haystida oo dhan jikada ku yaalo oo spices ah, yani oo malaay loogu talagalay ku sameyso. haddana waxaan ku daraysaa arkaysaan liin dhanaan. malaayga dhowr nooca wax loo sameeyaa. ani maanta waxaa rabaa inaan saliidda ku dubo, isoo foorno lagu sameynayo, isoo la huurinayo. intaba waan soo gelin doonaa hadduu alla yiraahdo. waxaana noo ballan ah bishaan ramadaan cuntooyin yaryar oo fudud inaan idiin soo geliyo. miisaanka qofka inuu iska dhima rabo bishaan, yacni cunto aan daciif ka dhigeenin oo yacni awoodna siinayso. maxaa la dhahayeeto isla markaasna miisaan badan oo kaga dhacayo. insha allah afuraha waa idinla soo wadaagi doonaa hadduu alla yiraahdo. inkastoo bishaan bil cibaadaysan ay tahay, haddana waxaan isku dayayaa hadduu ilaahay yiraahdo insha allah inaan video gaagaaban aan soo geliyo oo rootiin ramadaani ah. yacni saa afurka u diyaarsano, saa suxuurka u diyaarsano insha allah. saasaa rajeynaya, sidaan jeclahay sidaa weeye. oo ka faa'iidaysataan. qofkii miisaan iska dhimaayana maalin hore waa idin sheegay challenge aan sameyn doonaa, yacni nambarkayga halkaas soo dhigi doonaa ama whatsapp group aan sameynayaa. qof walba intuu bisha ramadaan iska riday, haddaa incase aad tahay oo kale 90 ama 80 bisha ramadaan 30 cisho markuu dhammaado weydkaaga waa iscabiraysaa. inta aa maraysidna waa is ogaan doontaa. xawaashidii iyo cusbadii adduunka markaa mariyay kadib waxaan soo qabtay bacda caadiga ah. bacdaasaan ku xirayaa cabaara. waxaan rabaa intaa hoosha kala qabsanaya inuu dhadhanka uu gudaha usii galo, iyo cusbada iyo xawaashida waxa dhan inuu gudaha u galaa rabaa. san waa sameysan kartaa. haddaa rabtidna markaa marmarayso hore waa ka sameyn kartaa, waa dubi kartaa ama ovenkaa gelin kartaa. ani laakiin waxaan jeclahay inaa cabaar yara meel dhigo suu u galgalo dhadhankii waxaas. meeshaan saa arkaysiin waxaan kusoo shubtay 2 qaadoo bur ah. waxaan kusoo daray kabsar iyo toon oo ice aan kasoo bixiyey. waxaan ku daraya spiceska oo chickenka lagu sameeyo, cusbo. intaasaan ku sameynaya, waa qasaya. kadib chickenka ayaan dhex gelgelinaya isagana. chickenkan waan diyaarsanaya already. dabka xooga uu saarnaa, hufaan kusoo siiyey. haddaa rabtid xataa adiga oon maxaa la dhahayeeto biyo aada ku karkarinin waa dubi kartaa, laakiin ani maraqaasaan ka rabaa. waa idin sheegay bariiskaan ku karin rabaa, ma fahanteen. okay, alaabtii kalena waa kana waan isku qasanaya sa arkaysiin walaalaha sharafta leh. halahan waxaa waaye halihii chickenka. marka insha allah commentiga ha laga arko videogan like-tiisa hadday badato insha allahu tacaala challenge-gaas ramadaanigaan sameyneynaa oo qofka weydka uu iskaga dhimi lahaa iyo wax walba. yaa fartaa lasoo taagay qofkii diyaar u ah insha allah groupka waa lasoo gelinayaa. insha allah gabar walba weydkeeda suu ilaahay ku ogyahay marka hore soo cabiraysaa. markay soo cabirto groupkay kusoo diraysaa. before ramadaan ay leedahay insha allah 30 cisho markuu dhammaado hadduu ilaahay nafta noo daayo. naftaan ammaano waaye. after ramadaan after 30 days way soo gelinaya. haddana inta weyd ee loo isgareysaa la ogaanaya, ma fahanteen. midda kale waxaan sameynayaa cuntooyinkaa soo gelinaya cuntooyin healthy ah oo maxaa la dhahaa weyd badan aan ku siinaynin, haddana saasay tahay dhadhan leh aan soo gelinaya hadduu ilaahay yiraahdo. suxuuraha oo kale waxyaabo oo iska simple ah, cabitaanada lagu afuraayo waxyaabo fiican aan soo gelin doonaa oo yacni miisaan badan keenaynin. directionka ay kullina waan soo dhigi doonaa hadduu alla yiraahdo. marka qofkii daneynaya iyo qofkii u baahan videogan horta laagtiisa laga dareemo, then qofkii u baahanna fartaa soo taago. hadhow ani challenge-ga waan rabaa halila shoorgareeyo ama linkiga oo yacni whatsappka aan soo dhigaya suu qof walba usoo join gareeyo. insha allah intaas inaa fahanteen aan rajeynaya. halkan hadda bariiska ayaan ku karinaya. saliida dabka soo saaray qiyaas ah. basal ayaan kusoo daray 1 xabo qiyaastii oo yaris usoo jarjaray. xawaashidii wixii dhan kabsar, toon, wax walba bariiska lagu karin lahaa ku daray. haddana bariiskii oo dhaqan aan ku shubaya. bariiska aan karinayo meelahaas adii 4 galaas meelahaas waaye. marka insha allahu tacaala
saasaa u sameynayaa. Markaan shiilo kadib maraqiyo kulul oo isagana dhinaca kale ii saaran aan gab ku siin doonaa hadduu ilaa yiraahdo. Heelkiisa iyo qorfihiisa iyo wixiisa dhan waan ku daray bariiska. Okay, insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iidi doontaan. bariiska maraqiyaan kusoo kordaray. hadda bariiska maanta hadaa walaaqda uu kaa jajabayaa. hal mar walaaq marka hadda saa ugu shubtidoo kale markaa walaaqdid cusbadiisa dhadhami wax walba markaa okay uga dhigtid daboolkiisa dhab ku sii shibka dhex. Okay, waa kana waan soo diyaarsanay sa arkaysaan cuntadii oo dhan miiskaan soo saaray. waxyaabo badan aan ka dhiman part 2 aan ka dhigi doona waa idin sheegay. cabitaanadaas u sameeyay maraq Itoobiyaankaas ama canjeero Itoobiyaanka marqa lagu cuno waxyaabo badan ka dhiman waan idin soo sheergareyn doonaa. hilibki iyo bariiski iyo chickenki iyo malaygi waa kaas hadirtaan. saasuu kusoo baxay markii miiska la soo dhigay. walaalaha sharafta leh idinkan waxaan idin kala jeenayaa videoga ina meel sare gaarsiisaan like-tiisa laga dareemo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.